kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha oo aan idinkaga soo gudbinayo stuudiyaha Universal ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdikariin Mursal. waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan dad Soomaaliyeed oo ku jira xero qaxooti ee ku taala dalka Koonfur Afrika kuwaas oo xaaladooda nololeed ay iska liidato. waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona barnaamijkeena toddobaadkan qoys Soomaaliyeed oo in muddo ku noolaa xerada qaxootiga ee Dadaab ee waqooyi bari dalka Kenya oo haatan dib ugu laabtay dalka Soomaaliya isla markaana dib ula midoobay eheladii asxaabtii ay waa hore ka soo tageen. balse intaanan u gudbin qodobadaasi aan ku hormarno xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee ku jira xerada qaxootiga ee Dadaab ee waqooyi bari dalka Kenya. saddex iyo labaatan sano oo Soomaaliya uu dagaal ka jiray dadkan waxa ay ku noolaayeen halkan oo ah xerada qaxootiga ugu weyn ee adduunka ee Dadaab ee ku taala waqooyi bari ee dalka Kenya. waxaa la aasaasay xeradani 1991 kadib dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka bilowday sagaashanaadkii. This place is far. This place is in the middle. goobtan waa ay fog tahay waxa ay ku taalaa meel cidla ah oo lama degaan ah. goobtan ma ahan ammaan oo amnigeeda ma sugnaa. meeshan waxaa soo gaari jiray kumanaan Soomaali ah maalin walba waxayna arrintaas socotay toddobaadyo. dadkaas oo ka soo lugeynayay gudaha Soomaaliya iyagoo socod ku soo jari jiray masaafo dhan 400 ilaa 500 oo kiiloomitir. People who had walked for 3, 4, 500 kilometers from inside Somalia to reach safety on the Kenyan side. dadka halkan ku nool waxa ay ka mid yihiin ku dhawaad 2 milyan oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo ku nool daafaha caalamka walow ay ku kala duwan yihiin dadkaasi qaab nololeedkooda taas oo ku xiran dhaqaalaha qof walba wadanka uu joogo. 25 sano kadib wali waxa halkan ku nool ku dhawaad nus milyan qof oo qaar ka mid ah dadkaasi ay halkan ku dhasheen isla markaana iyagiina ay ku sii ilmo dhaleen. waxaana halkaasi ku jira caruur iyo waalidkood oo aan meel kala arag abid xitaa dalkoodii hooyo ee Soomaaliya. waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ee Xagardheer xaafadda ee 11 familkeyga waxay ka imaadeen Soomaaliya 2010 ayagoo ka soo qaxay dagaaladii. waan ku faraxsanahay reerkeena aan la noolahay. nolosha ma sahlana mar walba. qaar ka mid ah qaxootiga waxa ay ku dadaalayaan sidii ay nolol caadi ah uga samaysan lahaayeen xeryaha qaxootiga si ay u kaafiyaan noloshooda. waxa ayna maalin walba la hardamaan dhibaatooyinka hortaagan nolol maalmeedkooda. dadkaasi badankood marka aad la sheekaysato waxaa ku taagan sidii ay ku heli lahaayeen magangalyada waddan saddexaad xaaladda nololeed ee xeryahaasi qaxootiga oo iska adag awgeed. waxaa ku yaala sawirro oo dhaqan fiican ah iyo sawirro oo dhaqanka xun ama nadaafad darrada. marka dadkii ayaga ku sheegay labadan sawir kanna waa xun kanna waa fiican kee baa fiican inaan isticmaalno midka wanaagsan ayaga tilmaamay. marka aad buu noo caawiyaa. ma noolaan kartid marka inaan caafimaadkeena uu ku jira aan ku dadaalno nadaafadii inaan wanaajino hoyga iyo meeshan seexana iyo cunadeena iyo biyaha cabna intaba. dhimasho aad u badan daacuunku wuxuu noqon lahaa isbitaalada si loo shaqeeya. marka kadibna dadka ay aamini lahaayeen meel oo lagu baaba'a oo dhibaatooyin ama ilmo la'aan caruur la'aan laga qaado ama dadka waaweynba oo malakamoodkii ama dhimashadiiba ay ka dhowdahay inay soo degeen oo kale. marka taasna maanta ma dhicin. markii kaamkii wacyigelin badan ama nadaafad loo sameeyey in alxamdulillah aad uu noogu hagaagay dad maantana kalsooni badan aan ku joogno oo fiican.
waa tahay daawadayaal weli waxaad inagala socotaan telefishinka caalamiga Universal waxaana bartan kaga jirnaa barnaamijka sahanka nolosha. marka laga soo tago xerada qaxootiga ee Dadaab waxaa kaloo jiro xeryo qaxooti ah ay ku yaala daafaha caalamka kuwaas oo ay ku jiraan dad Soomaaliyeed. dalka Koonfur Afrika waxaa ku taala xero qaxooti oo lagu magacaabo Blacksdrop ee u dhow magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika kuwaas oo ay ku jiraan qoysas Soomaaliyeed. haddaba toddobaadkan ayaan booqanay xeradaasi qaxootiga waxaan u kurgalnay xaaladda nololeed ee dadka Soomaaliyeed ee ku jira xeradaasi qaxootiga. haddaba toddobaadkan waxaan idiin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah wareysiga aan la yeelanay dhowr qoys oo ku sugan xeradaasi qaxootiga ee Blacksdrop. halkan waxaa ku nool dad kor u dhaafaya 20,000 oo qof oo degan 1742 guryo cooshada ah oo isku qaab u dhisan. tobankii qofba waxa ay wadaagaan ama wada isticmaalaan hal musqul oo bannaanka ku taala. ma lahan meel lagu meerto ama lagu qubaysto. waa deegaan si ku meel gaar ahaan u dhisan. waxaa degan dadyow kala duwan oo isugu jira qaxooti Afrikaan ah iyo dad qaxooti aan ahayn oo u dhashay dalkan Koonfur Afrika kuwaas oo guri la'aan awgeed halkan u soo degay. waxa ayna halkan ku sugayaan guryaha ay dawladda bixiso. dadka halkan degan ma ahan dad shaqeeyo mana jirto ila dhaqaale oo noloshooda ay ku tiirsan tahay. waxa ay leeyihiin dadka deegaankan nolosha noocaana ma ahan mid aan ku sii jiri karno. si aan wax badan uga ogaano xaaladda nololeed ee halkaasi ka jirta ayaa xilli subaxa booqanay xeradaasi qaxooti. ugu horeyna waxaa la ii geeyey qoys Soomaali ah oo degan guri ka samaysan alwaaxyo iyo jiingad. markii aan galay ilinka guriga waxaa halkaasi aan ku arkay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nuuro Yuusuf Jaamac oo halkaasi ku dhaqanaysa. waxayna ii sheegtay in xeradan qaxooti ay joogaan muddo iminka laga joogo 7 sanadood. wadankan waxaana keentay UN iyo dawladda wada socota. UN waa ku dhacna Mareykan wadan kalena maanaan helin. hadda wadankayagan iska joognaa cariishayagan iska deganahay marna la garaaco mar maxaayeeto nala dhaco dhibaatooyinku way iska badan yihiin laakiin hadda waanu iska nool waa iska cunaa waa iska cabnaa isaga cala la dhaqanaa. noloshaydu wallaahi kaamkaan waa isaga noola ilaahay baa igu rasaaqa waa garatay kula tahay. hadda maaragtaa waana cabbaa waana cunaa waa iska ladana sidayda kale. intaa kadib waxaan u sii gudbay qol yar oo halkaasi ku yiilay oo ay ku jiraan odayga reerka Aweys Macalin Qaasim iyo gabadhiisa Caasha Aweys Macalin Qaasim. waxaana halkaasi nagu dhaxmaray sheeko dheer oo ku saabsan nolosha qoyskooda. waxaan soo galay 2009 halkan timaadeen maxaa idinku kalifa marka in aad kaamkan soo gashaan oo halkan aad ku noolataan? waxaan u kalifay dadku waxay qaateen reintegration ay qaateen markii UN dadka kala saartay qaadku waxay qaateen 1500 oo reintegration oo qofka la siiyo yaa lacag qaadanaa baxaa leeyahay qofku wuxuu qaatay 1500 anigu waxaan ahay family marka lacag qaatay waxay single in single wuxuu qaadan karaa waqti laakiin in family oo ciyaal jiida naag jiida كل شيء والله مدرس وحنا مدرس كان واحد العائلة كلي كبحنا ما هيصنوا شغالين ما هينو لعبتوا ولا لعبتوا أنا كدعي وتصل إلتي واحد أنا قاصي كربح مكرنو يو أنت قولها نجيس يعني كلي أنا كل شيء شو أنا لسيو ساسا أنا كسر قال هالكلام كوكير أنا كو وطن طبعا سجيت فهم العمل وقرت عرّ مركي مسعرّك وجوت هالكن حاجة تلوي قبضت وقرت يوان كم حيدين كعويان مركا أنتوا وحنا قاعدين بروسيسكم وحنا معاوية منها إن سلتمنت أهلنا ودن سدحدا إن شاء الله إن وقرتي إن مالنتي يوان كان إذن كينن إلى يحدا إن وحموقضة أو يوان كويدين قبت مجران أنتوا وحنا قبتم وأنتوا وحنا تلفي وأنا قاعدين ودك كيلو قلبين
wali saddexaad ay la siiyeen waxaa la siiyey USA aan ilaa iyo 9 ilaa iyo waxaan marayay 12 marka waxaan ku dhacay reject la siiyo migration ku dhacay wixii ka dambeeyay waxay leeyahay soo wacayna isweeyeen dad badan reject la siiyo aan kala geeyay ma inta kale waa waxaan Soomaalidu waxa ku haray lagu fahmay bisad inta kale waa la qaaday waa gartay reject markay ku siiyeen oo processkaadii oo ku suurgali waayay maxaad sameysay marka waxaan ma sameeyno waan dacwooday oo abiilan ka qaato waliga soo diiday waa tahay noloshaada hadda qoys baatiin waan dareemi karaa halkan baad degantiin waxyaabo badan baa u baahan kartaan noloshiina maxay ku tiirsan tahay noloshiina waxay ku tiirsan tahay howlka xun baan wareejinaa oo locationka waa qaadnaa shaanteeda aan qaadnaa marna xaafadda joogto marna xaafadda jooga oo gabadhaas jirta anaa haayo tii kalena waxay jirtaa xaafadda walaashay jirtaa waxay joogtaa Israel marka howlkaas aan ku noolnahay marna la ka dhaco marna la ka xoogo marna aan gadano marna aan u fakarno aan ku noolnahay waa tahay Soomaali kale ma jirto oo halkan ku nool oo sidoo kale UN-ka u keenay waa jirtaa qolada dukaan kale halkan jirto dukaan leeyihiin kuwaas ayaga ka hor Soomaali aniga Soomaali ka harnaba aw Soomaalida kale marka halkay aadin waa la qaaday Mareykanka loo qaaday waa tahay lacalla haddii barnaamijkaada aad ku bixi lahayd hadda oo aan laga cancel lahayn oo imtixaankaas aadan ku dhici lahayn Mareykan maxaad ka sameyn lahayd Mareykan waa ka shaqaysan lahaa xoogay ku shaqaysan lahaa Mareykan shaqa loo tagaa jiif loo tagaa shaqa loo tagaa waa gartay Soomaalida waxay yiraahdaan South Africa waa wadan shaqo Soomaalida joogta aad u shaqeystaan nolol kala duwan ay haystaan maxaa ku diidan markii inaad South Africa ka shaqeysto halkan aad joogto ma shaqada way kala tahay midna waxa weeye waa xoogaa midna waa lacag wadankan waxa loo shaqeystaa waa lacag South Africa dad lacag haysa wax kuma shaqeyn kartid Mareykan dii lagu geeyo xoogaa ku shaqeysanaysaa lacag maaha way xoogaa soo saartaa cunaysaa waa gartay hadda maxaa idin qorshaa marka qoys ahaan maadaama halkan aad degantiin xeradan qaxootiga maxaad rajaynaysaan weli waxaan rajaynaynaa UN inay u tagnaa anagu dhowr qofood oo rajatooda haysano isku lood ah inay yiraahdeen dad baa idinka horreeyey oo idinku waxaa tihiin shalay tuwaalka markaan u fiirno shalay oo nala yahay waxaa nooga dhigaya yidhiin 9 iyo 10 yaa la dhacay iyo 11 anaga 12 ka dhacnay marka dadka idinka horreeyay oo la meel idinka idinka waxaa la qabo maayay suuqa wala soo wacaya oo idinka horreeya waa tahay halkan waxaa degan qoysas kale aad u fara badan oo ajaanib ah sida South Africaanka oo kale maxay yihiin dadkaas waxay sugayaan guryahan waxa ku dhisan waa temporary waa guryo ku sugid waa maahan ku dhoofid lagu sugayo marka dadkaas maadaama halkan aad wada degantiin oo dad iska saboolayeen ayagana sidoo kale miyaysan jirin wax dhibaato ah oo aad kala kulantaan oo dhankooda idinkaga yimaada waa jiraan waxaa jira dadka ma wada sina ma wada fiicna qaar waxaa ku jira fiican qaar xumaa ku jira qaar waxaa ku jira tuugaha ku jira hadda bisha hore 28 bisha hore iyadoo saan dhar u dhaqayso kale yurba ku saan ugu furan yahay la soo galay ninkan dugaanka nagu dhigan oo yarkan jooga mawlida la tuuriyay la dhagaxiyay la dagaalay albaabka furaysa u furay waxaan ma sida u fiiri oo lagu bilaabo tokaan soo tuuray gacanta u dhigay waa baranta wali wata halkaas ka baranta waa soo jeestay halkaas lagu soo ul kale afar oo lagu dhacday mana filayn shaantan ka ku dhaqaysay idina ma soo soo lagelay sabeesh kale jibiya mashiinka dhiig lagu haleeyo waxa dhan iga dakhranayba oo Soomaaliya ay wada kayaan anaga kaliya ma hayn ma dacwaysan marka waa dacwaynaha kiisan ka soo furnay kiisma ka furnay ka baahan nin ma shay sidilin bas laayiga guriga geeska dukaan ka saaran ninka dhigan oo qosa sidilin baa dana laayiga waa ku sanafeen way cabsanayeen sabab ma leh marna shiishka waa ka arkay dadka cabsan waa tahay maadaama arrinta ay sidaas u jirto maxaa ku diidan marka adiga qoyskaada inaad dib isaga laabataan halkii aad ka timaadeen Soomaaliya si aad nolol tan ka fiican aad u heshaan taas waxay ku xiran tahay inaad bokad mali haysato oo jeebka ku jiraan adoo gacan marno saano kala meel ma kartid meel ma aadi kartid oo jeebka ku jiraan gacanta ku haysato UN-ka ma ka codsateen marka in ay dib idinkugu celiyaan dalkiina oo ay tigirka ama qarashaad ku bixi lahaa dib u laabashada idinka bixiyaan waa diideen dadayona Soomaaliya waxay leedahay cid u macalinayna anagu waa diideen waxay leedahay Soomaaliya nabad ma ahna yidhi UN wadana nabad dadku maceliso maxaa marka hadda ka qoys ahaan idin qorsheysan noloshiina iyo mustaqbalkiina waan dareemi karaa caruur ku joogto caruurtaas mustaqbalkooda adoo ka fikiraya maxaa qorshe idin ah
qorshaheenu wuxuu yahay sidaan kuu sheegay inaan raajicino un-tan wixii ka soo baxa ilaa iyo sanadka dambe 17ka sharciga intooda ka dhacayo haddii wax kasoo bixi waayana aan ka tashano oo go-aanan gaarno aniga xaasigaan go-aan gaarno. waa gartay adeer magacaa magacee Aisha aldhaa. magacaa ku celi. My name is Aisha. Aisha af Soomaali ma ku hadli karti miya? Xoogaa le ku hadlaa af Soomaali. waa gartay iskuul ma dhigtaa? Haa. iskuulka dhigtaa Iskuulka loo Hindi Road Primary School. waa gartay waxyaabaha aad barata waxaa ka mid ah Technology iyo wax badan laga barto oo caawiyo sida English Afrikaans u barto. Libera iskuulka iskuul fiican waa inta iskuulku wadaan fiican. Soomaali kale ma iskuulku dhigtaa marka carruur kale Soomaali meesha isku aragtaan? Haa. Kuwa kale oo jooga gabar iskulaasna iyo gabar ka toog oo classkeeda ku jirto iyo wiil kale saddexdeena iyo labo wiilod kale. waa gartay waxay dhahday Afrikaanska waan bartaa marka Afrikaanskana waa luqadda South Africa inta badan looga hadlo waliba gobolkan Western Cape. Afrikaanska ma ku dhigi kartaa adiga halkee ka timid ma ku dhigi kartaa Afrikaans? Vai kom. waa gartay halkan maxaa ka soo doontay? Fogeja idinka kom. maxaa barataa? Wat leejay. waa gartay nolosha marka South Africa maanta aad ku haysataan iyo waxbarashada ma ku faraxsan tahay? Maya. Ma faraxsani because halkan markasta tuugiyaasha haddii qof falaanka taagan arkaan ul intay qaataan dilayaan qof oo waxa ku sameeyay inta qofka haddii wax ku sameeyaan inta weydiisid waa dhaydid waxa xasaas ay waa bas dhaydid waa laakiin inta sadishid ma ahan sax maan oo guriga haddii soo bilaqanta lagu soo galo lagu tumo waas ma fiicno inta meesha laga guuro ma ahane ma fiicno. waa gartay adi weli wax ma lagu sameeyay marka wax ma lagu dhuftay tuugadaas wax ma kugu sameeyaan? Maya. dad ma aragtay marka dib loo geysto wax lagu sameynayo? Haa dad badan arka oo dib loo geysto markaas ooyaan dhacayaan meeshaan ka guurno. had dad badan meeshaan ka guulo xirada guriyashooda dudmiyo had inta aniga halka saraaca way hayso. intee aaday marka? meesha eedaday oo meel fiican aada raale. waa gartay halkan ilmo badan ku nool saa u maleynayo marka ilmahaas wax Soomaali ah baa ku jiro marka adiga iyo walaasha kale laga reebo? ilmo badan oo Soomaali xoogaa Soomaali joogta laakiin kala real u badan. meeqa sano jirtaa? I'm 11 years old. ma jeceshahay inaad Soomaali tagto aad booqato? No. And if I go to Somalia, I'm not gonna remember so Afrikaans, English. Now why must I go to Somalia? And because this Al-Shabaab who kills the people, for why must I go? Must I die there? No. I was born here and I'm gonna stay here forever. yaa ku sheegay marka Soomaali in Al-Shabaab wax ku dilaan oo dagaal oo ka jiro dhibaato ka jirta yaa ku yiri arintaas? I see every time on Al Jazeera, it tells about Somalia everywhere. Now I know about it because I know English, I can listen to it and I can learn about it, but I'm not gonna go there. laakiin fiiri Soomaali waa ka timid aabaha ayaa ka yimid hooyada Soomaali ka timid awooyaasha Soomaali joogan marka eedayaala joogo marka South Africa hadda maanta waa dareemi karaa dhibaato badan ka jirto nolol adag ka jirto soo kama fiicno marka inaad Soomaali isaga laabato oo wax walba kala kulantid gurigaadii originally ama asalka ka soo jeeda dib ugu laabato? hadda hada inta aad ma rabi laakiin haddii naba noqoto waa aadi karaa markaas markii dowladda oo aadi noqdaan kulli oo Al-Shabaabna markaas dhibkay dhaafaan. Haa waa gartay marka hooyo aabbaha halkan joogaan UN-kii uu suuragali waayay marka adiga maadaama ay yar tahay halkan wax ku baratid ma kula talan lahayd marka in isbedel la sameeyo oo ma aragtay ama dalka dib loogu laabto ama qorshe la sameeyo maxaa is leedahay aabiyo hooyo ha sameeyaan oo nolosha ku aadan? hadda hooyo aabbo hadda wax haweenayaan u fiican in halkan ka guuraan because inta hooyada wareegto wax ma ka helayso iyo aabbo markasta balfadoosaatay murtidu anina dadaas joogaan halkan ka fiican intay labadooda intay meel fiican aadaan halkan ka guuraan meel fiican degaan meelahaas oo wareegaan aabbana isaga balfadiisa shaqo helo anina eedayaashay iyo areerayaashay la joogi karaa waxaas dhib maahan waxaasaa u fiican waxaas anin ka tali lahaa.
waa gartay gabadha taladaas ay soo jeedisay marka taladaas ma samaysid oo halkan aad ka guurtaan oo magaalada meelaha ammaanka aad degtaan oo adiga xitaa halkaas shaqa ka raasadid iyadoo waxay leedahay eedayaashiidan la joogi karaa hooyana ay shaqo kale raadsan kartaa iyada laftirkeeda qorshaas ma samaysid waxaa laga yaabaa gabadha talada maanta ay soo jeedisay familka noloshiisa in wax badan ka bedesho waa sax talada yaraan iyo weyn ma kala lahaa laakiin haddii aadan guri keliis bixi karin guri lama degi karo gurigan waxaan ugu dhumanaynaa waa kelidaan ka dhumanaynaa oo yuanta ugu gamanaynaa idaan soo disa meeshaan ilaa yuanta nooga dayra soo jira waxay leeyahay malan meesha ka deganaynaa yuanta ka dhamaanina markaas guuraynaa waa garta laakiin un-ka hadda rajagta idin siin already wax hadda rajo weyn oo jirta ma lahan dacwo aad furtaan waa laga yaabaa laakiin wax hadda rajo weyn oo sii jirta ma lahan so waxaa rajagtana siiya maaha UN ma ahan waxaa rajagtana siiya waa USA waay mareykanka ma UN-tana ma diidin UN rajagta uu siiyey maba soo sugaba marka UN-ta waa in waddan kale la siisa haddana oo USA ahayn shalay iyada USA nagu wareejisay haddana waddan kale nagu wareejisa waay naag waxaan arkay daraad oo iga horeysay oo tuusan tankan tualifkan ahay inuu tankin arkay oo la siiyey Australia oo 6 bilood caafimaadkii maraa 6 bilood bishii lixaad maraya dhiis hadda Australia waa maqan tahay Canada soo noqotay maalweeday ma soo wicin marka Australia ma laga baahan soo wacdo waa gartay adeer ma kula tahay marka haddii meeshan aad ka tagtaan oo waddan kale aad tagtaan Mareykan oo kale inaad ka heli kartaan nolol fiican أنا واحد سوى ملاك because نمط والكاس هالك تدي قف كديشو ولا ببارة تدك ولا هلا because هالكاس ولا نورا هبينك ليت ساعة كالكاس لكن هالك ليت مساعة كرت إن إلى ليش توا بنانك في فيريس كل مكان حريسي إنت فيريس توا بنانك بس إذا سهر توا ما شأنك كقولوا جعل لا أو من نمط كله waa gartay marka maxaa ka codsanaysaa Mareykanka dowladda South Africa dowladda Soomaaliya iyo UN-kaba wax aad ka codsanaysa ma jiraan أنا كعدسنا إن الصومالية شدنا عاويان أو دب أو هايستان إن كل عاويان أنا كعدسنا هذا. قارتك هو كبرنامج سجى جيفان قارنا أنت لا أنواع كل هو برنامج سجى جيفان قار ما كان هذا كاس إذا عاويان قريار قليلا أفيان على هذا. waagaag daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qoys Soomaaliyeed oo in muddo ah ku noolaa xerada qaxootiga ee Dadaab ee ku taala waqooyi bari dalka Kenya qoyskaasi oo haatan dib ugu laabtay dalka Soomaaliya isla markaana dib ula midoobay eheladii asxaabtii ay waa hore ka soo tageen qoyskaasi ayaa xilligan ku sugan magaalada Kismaayo ee dalka Soomaaliya shan iyo 20 sano kadib qaxootigu waxa ay bilaabeen in ay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo ee Soomaaliya. cali iyo xaaskiisa iyo weliba 5 caruurtiisa ahba waxa ay dib ugu laabanayaan maanta dalkoodii hooyo ee Soomaaliya. jaakada ilmaha سامكو جرا ماشي هذا انت كبحي انت ما وحرا ها maxaa malo galnaa dadka dhaxanta lagu انت قال بعد انك فهمت لك cali caruurtiisa halkaan ayay ku dhasheen waana meesha kaliya ee ay yaqaanaan cali suuqa aku kaas kana fadhi ayuu jiro aku jeega lagu maqam in guri laga guuro xitaa xiro qaxootiba ha ahaatee waa shaqo aad u adag sakare warkaa waa laga tagay shan sano oo ay halkan joogeen waxa ay go'aansadeen in si nabadgelyo ah ay dalkoodii hooyo dib ugu laabtaan laakiin waxay aan ciyaal yar baan wataa qacleedan iyo waxaan ma jecel waa ogsanay cunug yar ku yar yahay caano iyo fruit iyo wax uu jaahay soo ilaan wadankaaga hooyo waa mugta hadda maanta Kismaayo ka baahad bulshada aadaysa shaqo u aadaysa wasoo shaqada reerkaaga soo laabanaysa aadeen
daafeed maanta ma aqalaad lagu yiraahdo Gaarisa mise Nairobi shaqo jirta ma aadi kartid waqti waa lagu leeyahay ku dhowaad 150 qoys ayaa maanta halkan ka ambabaxaya kuwaas oo ku sii jeeda dalkoodii hooyo oo ay mar hore ka soo tageen waxaa dadkaasi ku jiro qaar halkan ku dhashay oo 25 sano oo Soomaaliya uu dagaal ka jiray aan meel kala arag abid inta aysan ka gudbin xuduudda Safiya waxa ay halkan ka qaadanaysaa waxyaabo yar yar oo aas u ah nolosha gurigeeda cusub caruurtu waa markii ugu horeysay oo ay ka tagaan xeradan qaxootiga waxa ayna wajahayaan meel aysan abid arag badda oo kala tusaya waxaan tusaya meelahan ku noolaan jiray markaan yaraanay sida baadiyaha oo kale هذا يرين ودن واحد كشيء إذا مركز دالان حريرين سامع ضد الفاصل حريرة يعني حدنا ودن الدولة كده اللهم هنا وما يحكي سقطنا وأنا ولا ليه waxaan bay leedahay wada helaya runtii oo kala ma aha ما يبين فد ما يصير dawaalan kartaa فد ما يصير meel kale dadkiisa leedahay ilaa qaraabada ku degan oo soo fiirsan kartaa Ali iyo Safiya waxa ay dib u bilaabi doonaan nolol kale oo mar hore ugu dambeysay saddex maalin kadib safarkii hadda waxa uu soo gaaray magaalada Kismaayo oo ah halkii ay reerkan ku soo socdeen waana meesha ay rabaan in ay salka dhigtaan mana jirto wax agab ah oo halkaasi ugu diyaarsan marka laga reebo ehelkoodii oo ay dulsaar ku noqon doonaan Kismaayo weynaatay meeshan ku ka sii dooqtay dhisme zaad ka socdo wadada isbedelay oo markaas marka hore qaraabada aan ku dago kabacdina meeshii cid ma dul saarnaanayso waqti Ali iyo Safiyo 3 toddobaad oo ay dulsaar ku ahaayeen qoys kale hadda waxa ay heleen guri u gaar ah oo ay u soo guureen الحمد أشوف إلهي وأنا ودي أوكي سأقول نهاية وبلان وإيسيين وبلان قاد وإيسمي لكن وحولي يقبت هذا معسكر الجزوة بعسكر لكن حق الودقية الحمد لله ما نبقى يشتري لها وقت ما لها هي دافع هذا rajada hadda caadi waay waxaan doonaynaa wali ma helnaa ka rajaynaya insha Allah hadii ilaahay ka raal noqdo waa inaan geeyo dugsi iyo wax madrasa labada waxbarasho الحمد لله waan ku faraxsanahay maadaama wadankayga hooyo ana u soo laabnaan la isii caawinayo baa mahad
marka saas awgeed maxaa la ilaah baa ugu shukrinaya maadaama ciideed hooy dib ugu salaam waa tahay daawadayaal videogaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan wixii fakar ama talo tusaale ay la xiriira barnaamijka sahanka nolosha waxaad noogu soo gudbin kartaan emailka ku qoran shaashada iyo weliba facebookgeena tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu